قفص ويقعنا دتنا وحنا تجي ماذا حنون في ربنا كلا كنا لكن قاعد كل واحد بعتها كلمة كنا إيدي مديسي صوت سوتا إيه لا أنت ما بدك شيء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعوة كسود ومرق فشيال الجنة. هدي أتاي بوقشة كواد فضلا سبسكرايب نوصاركم بلالكنا فرصية أو نقطة دعوة كواد مقالة هالكان سوق لنا. هذا نكسود ومقال عصب. مقال كاسو لما يعباي وركي هرا ورسوده. هدي عاد هوري عاد وعرك جرتاي. مسنا أو مقال جرتاي. حرونتا مسنا ميلها مهردها رجع يكو قيلان. isna ay ku fadhiistaan hadda waxaa soo baxay meherado ama xaruuna gooni ah dumarka inay ku qayilaan haddaan ana Soomaaliya bariyahan dambe waxaa sii taraya soo badanaya muqaadaraadka awalka hore muqaadaraadka Soomaaliya ay isticmaalaan way ahaa jireen saddex nooc midkood saddexdaas nooc midkood jaad sigaar iyo tubaako saddexdaas nooc ayaa la isticmaali jiray saddexdaas nooc see loo sii kala isticmaali jiray keena jiro labaatimeeye sodomeeye balwadiisa marka la dhaha balwadu uu leeyahay balwadiisa waxay ahaa jirtay sigaar ama qaad keena afartimeeyada iyo meelahaas dhaafinay balwadiisa waxay ahaa jirtay inuu cuno tubaako balwad kala Soomaalida ma leeyahay dadkii marka balwadaas cuna la arkanay waxaan arki jirnay inay nolosha ka dhacsan yihiin laakiin bariyahan dambe waxa ay maadi muqaadaraad oo la yareysto laakiin si kuwii hore ka daran sida ognaay muqaadaraadka oo la isticmaalo waxa kamid ah tambu abuunigi garnaas kheyraad ay bakarna kan jaamacada dhigto kan iskuulka dhigto xitaa ilmo yare dugsiga dhiganay taabuuga waa saarna garanay xitaa taabuuga markii la suubiyay research la suubiyay cilmi baaris la suubiyay markii tirkob in rag iyo dumarkeeba u badan isticmaalka taabuuga waxaa la soo saaray dumarka inay u badan yihiin gaar ahaan hablaha iskuulaha iyo jaamacadaha dhigto gabar heerka aan ka taaganahay sidoo kale hadda baxaabo wixii hore laga soo tagay tan xigto shiishada oo hablaha Soomaaliyeed iyo ragga Soomaaliyeed dhalinyarta iyo wada cabaan nin kasto aragtana kaaga sheekay inay tahay caafimaad bisna lagu buurto xitaa aniga hateed waxaa leedahay baash cabniyo waa ku buurinaysaa waxa saalaysa tufaax leh waa tufaax lagu buurinaa oo lagu sheekay caafimaad ba cuntada ay furtaa ninkii ka dhacsana gaariga salsaara laakiin si qofka markuu aqli leeyahay iimaan uu leeyahay waxaas ma loo keeni karo horta taas waxaas waxaaba ka daranba aan arkay social media ku arkay TV oo sawir maxalliga Hargeysa xarun dhan ay furteen bari Hargeysa oo hablaha bisley ku qayilaan xarun dhan oo hablaha ku qayilaan ila fiiriya xarun dhan waa hablaha ku qayilaan والله شو حنكون بالله بحش اللي هذا بدأ حد أما شيء شد قفص ويقعنا دتنا وحنا تجي ماذا حنون في ربنا كلا كنا لكن قاعد كل واحد بعتها كلمة كنا إيدي مديسي صوت سوتا إيه لا أنت ما بدك شيء xarumaha ka furan Hargeysa ku qayila waxay sheegtay in balwadeeda koowaad ay ka bilowday shiishada tii koowaad ay bilowday shiishada dhibaataan kala kulmay matag iyo barnaamijyo kala madax xanuun iyo ay uga furtay laakiin qaadka wax dhibaato ma ku arkin baashaan mooyane raaxa nabad wareysi oo TV caalami la qaadanayo daawade haddii aad maqli jirtay marfashyo u gaara ragga
oo ay ku qaylaan kuna mirqaamaan iskuna weydaarsadaan sheekooyinka hadda warkii hore war soo dhaaf waxaa jira marfashyo u gaara haweenka iyo hablaha qayla oo magaalada Hargeysa ka jira kuwaasi oo ay ku kulmaan kuna cunaan qaadkooda iyo mukhaadaraadka kale sida sigaarka iyo badeecada arintaasi oo dhaqanka iyo diintaba halis ku ah hore hadii aad maqla jirtay ragga inay leeyihiin meelay ku qaylaan meherado hadda Hargeysa waxaa jira meherada qaas ah iyo hablaha ku qaylaan taas arintaas tifiisu jii arintaas oo diin ahaan dhibaato halis sida ogna horta dadka qaylo ha cunaan dambu ha cunaan sigaar wuxuu ku leeyihiin marka aad dhahdo niyo waxaan diin ahaan ma fiicnay ma iska daaysid su'aasha kowaad lagu weydiinaa maxaba daliil ma haysaa aayad quraankeed ama xadiis hada runtii inuu iska shaaga loo baahan yahay quraanka waa garanaynaa xadiisaha waa garanaynaa diintii waa leenahay muslimiin baan nahnay diintii waan ku dhalanay laakiinse qof kasta wuxuu oo rabo oo isaga niyadiisa ku jiro markay dhaadane waxaa xun yahay soo og waa xun yahay justification ku le macna cudurdaar laakiin diin ahaan marka la imaado diinta kaftana ma gasho ma fahanteen cudurdaarna iyo qarac iyo laalaab ma gasho diintu waa wada sax ah laalaab ma jiro wadada tooska diinta laalaab ma gasho anagoo garanayna marka qofka marka la taabuuga cuna cuniga dhalinyarada taabuuga cuna odayga weyn oo tabaakada saaranahay kan kale oo sigaarka wax isku marka dhaadinay waxa ma fiicna diin ahaan waxaan xaraam oo iska daa wuxuu ku leeyahay ahad daliil ma asajaad ka dhis xaraam ma asa sigaar oo ayad ku dheesay ma asa dambu ayad abda is dhigaysan quraanka waxaa jiro hal jamac isku siinay waxaa jiro waxyaabo markii xadiiska iyo macnaha iyo aayadda quraanka lagu waayay ijmaac culimada loo aaday marka diin ahaan waa wada naqaana midda koowaad daliil waxa way wax kasto balad xadiiska 40 hadis 40 nin kasto inta Soomaali dugsiga soo wada mareen nin garaneen ma la 40 waa fanta malena waa la soo wada bartay xadiiska 40 kullu muxuu leeyahay inna al-halala bayyin wa inna al-harama bayyin وبينها أمور مشتبهات إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينها أمور مشتبهات فمن اتقى شبهات وقع في الحرام معده إن الحلال بين حلاش وعده وإن الحرام بين حرام وعده وبينها أمور مشتبهات لكن حرام وحرام وحلاش دحدود وحياة اشتبهات فمن اتقى شبهات شبهات كاسكي كدع وقع في الحرام وحرانت شبه حلاشنا شبه نكي كدع حرام كدع محاورك سيجارك مشبهاتك سوكلا قاتك مشبهاتك سوكلا تواكل مشبهاتك محلها تابوغي شيشدي وحيواسنا مشبهاتك آيات قرآن محيط إنما الخمر والميسر والأزلام رجز من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأزلام رجز من عمل الشيطان خمرضة يوحكستو مانك دوريو وهي خمرضة يوحكستو مانك دوريو ومانك دوريو هي جاتك مانك دوريو سرقان قادم سيارك أبو وحياة واسدن وحكستو مانك دوريو يعني كفو هذا رجز من عمل الشيطان نكستو ماركو وقرناي قرآنك وقرنيسا حديثك وقرنيسا إنا أسدب على اسمها حلقان حلقو قاني دار الدنيا دارتا وإنا كو شخيصتا وحي آسخيصتا بري أقرأ وحي مات انت كو شخيصتا أبري دارتا ودار الدنيا وحلقو العمل عمل إنا شخيصتا عمل كذا انت كو شخيصتا بري ولا بنيسا أفانتي ماشي ولا بنيسا حوا ميلا ولقد لقى قبوبيني لقى دمنيني لقى دوخوبيني لا يرى لي هذه عاشق يسطو هذه عاشق يسطو عمل في عاشق يسطو راح أكون ولا نساء الحمد لله هذا سجل بود عليه وراسي والله حمراي hablaha qaylo iyo xaruntii ku qaylaan sidii u fadhiyaan mid kamid ah hablaha la wareystay waxay leedahay waxaan bilaabay 9 bilood ka hor aqal cunoo bilaabay wax dhibna ma ku qaban
نوت وراسك عندك يسنة mid kamid ah hablaana waxay leedahay qaylaadkan aan qayilo jaadka maalin kasta sigaarkan iyo balwadaan isku dadala iyo xarunta fadhiistay shaaha iyo waxna cawaayay balwadaasba aan ku shiinlo leeyahay miga bax rag baan waca cabdi cismaan cumar suubod oo keenaanay waqayla marka runta la isku sheegay cabdiga maalin kasta sigaar iyo jaadku keena bilaa sabab la'aan bilaa faa'iido la'aan ma kugu keena runta la isku sheegay tan kale oo xigto Soomaaliyay qofka ku gishil ku siinaa maskaa siinaayo ujeedo ku siinaayo ujeedo iyo faa'iido wixii faa'iido ka dambeeyna Soomaalida ma qabtaan marka mise qof waxa la galeysanayo saan wax uu qabo faa'iidadaas inta saqabtay maxay faa'iido ka helaa alaga bilaaba marka qofka waxaan iska siinaa without faa'iido qof iska siinaa ma jira waa mayo marka abay waxa anaga anu sheekeynay kan balwad maalinka sigaarka jaadka wax ku keenayo without faa'iido ma faa'iido waxa aad ka helo adina noo sheeg waxaan kala talinayaa inay qaadkooda iska cunaan ama jooji waa si wataan waxa la rabay joojin aniga ma joojin maxaa kula tala lahayd Soomaalida kale hablaha kale Soomaaliyeed ee jaadka cuno maxaa ku waan lahayd adina ahaantaada sidee ya inaad jaadka iska sii dhaafto marajay lahayd oo halkan ku geys meeya dhahday waxaan kula talinayaa in qaadka sii wadaa waayo anba madaayir waa si qayl raba adigana qayl waa ana bad waa galay gudku waa galay ana galo haba bala kala duwataan badawayga soo jeedaa laakiin waxaan kaga soo baxayado wax macquul ah maskaxda gali kara aniga guntidan ku wadan karo balwadayda waxaa la weydiiyey balwada markaa isticmaasho sarqaan aan noqoto waxyaabo badan iska bedeli karo barnaamijka kala dhibaatooyin baa la kulmi kartaa sidee marka waxaas wixii tiri waan ogahay dhibaatooyin badan inay soo wajahaan dhibaatooyinkaas inaan iska ilaaliyo marqaankeedana aan sii wato macnaha jaadkeeda aan sii cuno aan rajaynayo aan dhibaatana diin ahaan isku ilaaliyo maxaa diin ahaan isku ilaalinaya marqaan iyo filim badii a bilaawdo waa ahaatee hablaha iswareysana waxaa la inay markii qaadkan waxa bilaabays balwad baan ay ku qayilaa marka rag marka qayilaan heblo saas oo ahay saasno bari heble meel meeshaas ka tagay qaracwa habla qayilinay oo marqaame maxaa ku dareemay hablaayadaas ma aragtay hebel qurxana habadkaas ku haasta i barnaamijka laga sheegay mugta bana waa sheekaysana marka balwad xilliga bilaawday maxaa ku balwad habada waxay markana shiishada ay horeysay shiishadana dhibaatooyin kala kulmay laakiin qaadka wax dhibaato kala kulmay leedahay mid kale hadlays iyadana wareyskan oo daraadkii kala hablaha weebala dhuuma jireen gabdhaha yar laabka ku cunayta buuga macnaha ku kala la qabanayso oo kale ay guriga ku kala intaan hadda laakiin si waxa soo baxday inaan xarun loo soo biyo kooda qiilan marka sidaas waa si arrin diin ahaan dhibaato si marka Soomaaliyiin waxa ku waana in balwadaas la iska ilaaliyo xagga dumarkana waa jiirka muslimiinta hablaha Soomaaliyeed halkan waxa soo gogobeyna muuqaalkii ama fiidiyoga uu hadlaynay dhibaatooyin jiro awgiis muqaddaraadka ku saabsan wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi